siyaasiga Cabdirashiid Cabdilaahi Saalax Xubada oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayne maamulka Khaatumo State ayaa markii ugu horeysay ka hadlay faragelinta maamulka Puntland ee ku aadan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ka soo gala gobolada Sool Sanaag iyo Cayne Khaatumo State. siyaasiga ayaa arrimahaas oo dhan ku tilmaamay kuwa gardarra isla markaana gaf ku ah shacabka reer Khaatumo, waxaana uu maamulka Puntland ugu baaqay inuu arrimahaasi ka waantoobo. siyaasiga oo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladiisii ka mid ahaa: waxaa soo baxday in maamulka Puntland cadaalad darrada uu sameynayo dawladda federaalka ee Soomaaliyeed ee ummadu dhex u ahayd ee shalay isimada maanta ka soo jeeda Khaatumo ee xaq darrada lagu sameeyay ee ka cabanaya dhibka loo geystay waa kuwii shalay doortay dawladda maanta uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. ummadu qabaa'il bay wax u qaybsatay, dadka kana beesha uu ka soo jeedo mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas haddii waxbana uma qaybin jirin waxbana uma qori jirin, xaq iyaga u leh inay qortaan. dadku waa qabaa'il wali ma aynaan gaarin maaragtay constituency level iyo seejooyin. arrintaasi khalad weyn baan anagu aragnaa haddii aanu nahay dadweynaha Khaatumo. waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka ee Soomaaliyeed 48 saacadood gudahood haddii aanay ku reinstate garayn ninka professorka ee ay wadaan garaadada beeshaasi maamulka Khaatumo ka soo jeeda, waxaan u sheegaynaa inaanu kala noqon doono kalsoonidii guud dal iyo dibadba aanu ku haynay anigoo ah wakiilka East Africa ee Khaatumo State. waxaan markaa kale oo aan qodobka labaad u yahay dhammaan xildhibaanada ka tirsan dawladda federaalka ah ee ka soo jeeda maamulka Khaatumo muddo 7 maalmood gudahooda waxaan u sheegaynaa inay oo aanu ku amreynaa inay tagaan magaalo madaxda gobolka Cayn ee Buuhoodle si loola sameeyo la tashi wixii laga jawaabi lahaa arrinta cadaalad darrada noocaas. marka midna ummadda Soomaaliyeed iyo ismadeeda ayaan leeyahay waxa weeye haddii maanta taa jirta aan laga hortigin ee loo ogolaaday in Puntland ay qorto dad Khaatumo ka soo jeeda oo xaq darrada ah, haddii waxay noqonaysaa shirka Ilaahay mid lagu najaxo ka dhici doona cadaado ee gobolada dhexe ee ummadda Soomaaliyeed ee gobolada dhexe ay ku samaysanayso maamul goboleedka. haddii in Puntland 5 qof ay tiraahdo hal iigu daro ergada ka tagaysa galmudug maamulka galmudug ee aan walaalaha nahay 5 qof hal iigu daro sida haddaba deeta ka taagan waxaanay shaqo ku lahayn ay soo qorayso. marka waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka ee Soomaaliyeed madaxweynaha prime ministerka speaker of the parliament waliba gaar ahaan u khusaysa cadaalad darrada noocaasi waa ku soo noqonaysaa. waxaanuna kale u sheegaynaa ninka siyaasiga ah waxa uu la mid yahay qof dawarsanaya ama tuugsanaya oo kale hadaba sidii qof maartay qofku uu yaqaan af Soomaaliga 2016 waa in saaran yahay wixii cadaalad aad fashaana waad ku soo noqon doontaan maartay doorashadeeda. wixii cadaalad darro aad fashaana waxay noqon doontaa ta idin dhaawacda mustaqbalkiina. dhanka kale siyaasiga ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar muddooyinka ugu dambeeyay warbaahinta qaarkeed ay soo qoreen kuwaas oo tibaaxayay in madaxweynaha maamulka Khaatumo State Professor Cali Khaliif Galayd ay dawladda Itoobiya ugu baaqday inuu dalkeeda isaga baxo. wararkaasi oo uu ku tilmaamay kuwa aan sariir raad toona lahayn. haddii website-dada qoray waana wax dacaayada oo anagu de inta uu Itoobiya joogayba waanu la xiriirinay madaxweynaha oo second by second baan u wada hadlaynay. hawshuna si fiican bay soo afgarteen madaxda Itoobiya waxyaabo ay ka wada hadlayeen waxa kamid ahaa nabadgelyada waxa kamid ahaa waxyaabo badan oo maartay wax wada qabsiga maadaama xuduud u dhaxayso maamulka Khaatumo State iyo Itoobiya. marka waa wax aan waxba ka jirin haba yaraatee. ugu dambeyntii siyaasi Cabdirashiid Cabdilaahi Saalax Xubada ayaa shirkiisan jiraad ku soo gabagabeeyay baaq ku aadan shacabka reer Khaatumo waxaana ugu baaqay inay ka shaqeeyaan midnimadooda iyo wadajirkooda. shacabka Khaatumo waxaan u diri lahaa baaqa in ay la socdaan xaaladda siyaasadeed meesha ay marayso khaladaadka laga geliyo oo especially dawladda federaalka ay ka geliso. waxa weeye hadda dadkan labada maamul ee dhinacyada inaga xiga jooga iyagu hadda deewaaba la yaqaanaa oo waxa weeye waa ciidanka caloosha oo wax problema male laakiin dawladda federaalka ee Soomaaliya oo dhan ku midaysanto ay dooratay ayaa waxa ay tahay xaq darrada ay gelayso. waxaan kaloo ku boorinayaa inay midnimadooda u soo jeestaan sababtoo maanta halkaa dhigtay ee waxoodii cid kale u qoraysa waa midnimo darradooda wey. marka taasaan iyaga leeyahay madaxdiinana iimaansada waxa weeye una soo jeesta midnimadiina iyo sidaad horumarkiina uga shaqayn lahaydeen. waa Cabdixakiin Ilbuur, Kalson TV, Nairobi.